bismillahi raxmaan raxiim daawadayaal mar kale kusoo dhawaada koorsadeeni barashada Windows 10 maanta casharkeenna waa uu ka duwan yahay casharadii hore waxaana ku faaqidi doonaa amaba aan kaga hadli doonaa computerka tusaale waxaan ku isticmaalaynaa laba qof oo kale qof waliba mar raba qofta kale in xogtiisa uu la socdo waxaan computerka u samayn doonaa laba user yani user iyo user kale qaabkay u shaqeeyaan sidoo kale computerkaaga sida magaca uga bedeli kartid qaybta log screen-ka sidoo kale waxyaabo badan ayaan isla fiirin doonaa okay waxay ma doontaa marka ugu horeysa halkan control panel halkaas marka imaano kadib waxa tagi doona halka ay ku qoran tahay user accounts kadib waxa imaan doona user accounts qaybta kore marka imaado waxaan dhihi doonaa manage another account kadib halkan hoose ayaa imaan doona ay ku qoran tahay add new user in PC settings kadib si toos halkan ayuu ii keeni doonaa waxaan imaan doonaa halkan add someone else to this PC waxay wareegsanaya kadib sidan ayuu ku soo saaraya magaca ula bixiysid marka magaca ula bixeeno waa tijaabo okay password oo abuuro adiga waxa rabtaa ka dhigan kartaa passwordka أنا أدوات سميست باسوير re-enter مركلا قلنا باسويرك security question أدورنا what is your يعني what is the name مقالة دا قلنا تانو كله جوابته حكريجنا موجوديشو سؤالها أنا كلا دورنا question 2 دورو question 2 نوجدي مجا عاجي يرانتا أو يعني what's your childhood name كديب وحن دورنا يا مجا oo aniga hadhow aan yani markaan forget dhihi doono kale su'aalahan taasi ku anfacayaan kadib waxa leeyahay what the name first school you attend okay al-fajr iska dheh okay sida u qortay adiga inaad iloowina muhiim ah su'aalahan yani hadhow markaa wax forget gareynay sidoo kale ee badanaa ku anfacayaan Mogadishu okay waa iska hubiyay kadib next ayaan leeyahay waa kana account cusub waa ku soo daray waa local account okay ikaadi marka account type waa bedeli kartaa yani administrator oo kala ka dhigi kartaa standard user waa mogtahay administrator waa ka dhigi kartaa laakiin administrator maraba inuu yahay administrator waxa la ciwaanka maamulka computerka oo dhan leh okay standard ay ahaado okay ayaan leeyahay okay marka waxaan rabaa inaan yani soo refresh gareeyo kadib control panelka ayaan ku soo laaban doonaa okay user account isla meeshii hore okay manage another account waa kana ciwaanka kale waa uu ii soo galay labadooda password ayaa igu xiran okay sidee marka ku ogaan karaa in yani midka ii kacsan waxaan ku ogaan karaa halkaas inaan imaado kadib waa kana waa ii muuqataa kan kale haddaan ka cirabana sidan ayaan ku soo gali karaa sida ku muuqata okay waxaan rabaa marka in yani magac oo kale aan ka bedelo kaadi user account isku soo laabo magac oo kale inaan ka bedelaa rabaa change account name ayaa taabanaya change account name markaan taabto new account name ayaa halkan ka dooranaya okay Axmed Baashi hadda igu qoran waxaan ka dhiganayaa Axmed Baashi okay change name ayaa leeyahay waa kana magac waa uu isbedelay account type ka sidii data meesha kale intana waa ka bedeli kartaa oo yani administrator waa standard waa ka dhigi kartaa okay ciwaanka kala rabtaa tusaale in wax ka bedeshid waa dooranaysaa markaad doorato name ka kala ka bedeli kartaa waxaa rabaa magac kale tijaabo account 2 oo kala ku qoraya account 2 change name ay leeyahay password ko kalena ka bedelaa raba new password dooranaya kii hore dib ka gelinaysa okay password ko waxa ka dhigaya 11 confirm 11 password inta waxa la lahaa yani qof walba oo u muuqanaya yani waxa adiga ku soo xasuusinaysa badanaa laga dhigtaa in hadda waxaan ku xasuusanayaa ka dhigana 1122 waa ka dhigana laakiin passwordkayga 11 uu yahay
change password passwordka waa ka bedelay okay ciwaanku waa delete garayn kartaa yani localkan cusub hadda abuurtay you can delete I hope inaad loo fahmay delete haddii aan dhaho fileskana ma deleedaysaa uu ileeyahay delete files haddaa dhaho keep files aa dhihi karaa laakiin ciwaankan uu deleedayo waa mahadsantihiin waxaan rabaa marka in aan soo kicino ciwaankeena cusub yani userkeena cusub ee aan computerkeena kusoo kordhinay ugu horreyn waxaa imaan doontaa calaamadda start menu waxaa imaan doontaa halkan sida arkaysan waxaa noo kacsan kii hore kilig ayaan dhihi doonaa kadib waxaan dooran doonaa halkan ay ku qoran tahay sign in account 2 ugu horreyn marka ugu horreysaba waxa uu ku keeni doonaa halkan kadib waxaa gelin doonaa baasweerkeeni aan usoo samaysanay kadib waxaan dhihi doonaa enter marka enter dhahno ayuu si toos ah yani shaqada u bilaabi doonaa sida kuu muuqata welcome ayuu dhahay cabbaar ayayna qaadan doontaa waxaan rabaa marka in aan sugno inta uu ka dhammaanayo welcome iyo waxyaabaha kale ee uu inoo diri doono kadib si automatic ayuu computerkeena usoo kici doonaa shaashadeena desktopka windows 10kana uuna keeni doonaa sida kuu muuqata weli waa uu wadaa shaqadii balse hadda ayuu gabagabeeyey oo wuxuu ku leeyahay hi soo dhowow kadib waxaan arki doonaa wixii uu ku xijiyo we are getting everything ready for you yani adaa lagu diyaarinaya wax walba kadibna yani waxaan kusoo dhowaan doonaa oo si toosa uu inoo geyn doonaa shaashadeeni windows 10ka ama desktopkeena waa kanaa sida aragto leave everything to us do not turn off your pc yani computerkaaga hadaminin annaga naga warsug waaye kadib waa kana windows stays up to date to help yani adaa lagu diyaarinaya weli si toosa hadda ayuu usoo kici doonaa kadib waxaad dhihi doontaa accept halkaas ay ku qoran tahay accept ayaa dhihi doontaa computerkaagana sidaas ayuu kugu soo kici doonaa sida kuu muuqata shaashadeeni windows 10ka aad iyadoo yani sidaa uga baranay ah waa inoo soo muuqatay sida aragto waa kana shaashadeeni haddii yani aan tagno start menuga si toosa account 2 waa kaasa waa uu kuu muuqda account 2 waxaa noo kacsan hadda account 2 waa ku mahadsantahay daawashada cashirkan aad iyo aad